Asalaamu calaykum. Barnaamijkan waxaa uga hadli doonaa dadka oo la siiya wada dheeraada. Tan soo qaadana shaqsiga ugu horeeya waa ninkii barlabta ahaa Leo Tolin. Waa 80 jir Maleeshiyaana wuxuu awood u leeyahay inuu soo jiito alaabta kala duwan ee ka samaysan birta. Maqaarkiisa ayaa hayn kara bir lagu qiyaaso 80 pound. Saynisyahanadu waxay sheegay in maqaarka ninkan ay ku jirto macdan u sahlaysa. Laakiin arrinta mucjisada leh waxay tahay qofka labaad ayaa ninka ayna korontadu karin. Rushman waxa uu dhashay waddanka Hindiya. Waxa uu jirkiisu gudbin karaa korontada awoodda badan ee dili karta qofka bini'aadamka iyadoo aan wax dhibaato u geysanin korontadaas jirkiisa marka laga reebo indhamadoobaad ay u keento. Qofka saddexaad ayaa Seville Magabe. Ninkan oo u dhashay waddanka Japan ayaa waxa uu awood u leeyahay in wax kasta oo lagu soo tuuro ayna marna seeftiisu gafin, xataa haddii xabad lagu soo tuuro waa mid uuna la gafayn. Ninkan ayaa kaalinta koowaad u gala dhaqsashada shiishka sheefaha ee adduunka oo dhan. Waxa marka uu sameynaya arrimahan ka soo qayb gala dadyow kala duwan oo ka kala yimaada. Ninka afraad ayaa ah Maqaarjiid. Ungari oo u dhashay nin British ah. Waxa uu awood u leeyahay in maqaarka jirkiisu kala jiidmi karo sida cinjirka oo kale. Ninkan qiyaasta maqaarkiisa uu sare u kala jiidmi karo ayaa lagu qiyaasaa ilaa 6 inji